waa mar kale iyo programmadan scholarshipka waa idin salaamay saaxiibayaal mid kasta dunida aad ka joogtaan. Maanta waxaan idin wadaa scholarship master program ah kaasoo ay bixinayso dowladda Faransiiska. Waa scholarship loogu talagalay ardayda qaxootiga ee dunida dacaladeeda ku nool, Africa iyo America, Asia, Australia iyo waddan kasta dunida ku yaala loogu talagalay. Marka waa program masters program. Programka marka waa 2 sano oo master program ah, science ah, isla markaana lagu baran doono insha Allah Paris, jaamacad ku taalla waddanka Faransiiska. Marka waa caasimadda jaamacad ku taalla weeye. Programkani waxaa loogu talagalay in ardayda lagu kobciyo noloshooda iyada oo loo marayo dhanka waxbarashada. Marka higher education weeye insha Allah. Faransiisku saad ujeediin halka uu ku yaallo levelka mase xeerka waxbarasho waa master program weeye. Dhammaan field kastaad ka dooran kartaa. Marka in person weeye, online laguma baranayo. Waa inaad Paris imaado ayay noqon dadku guulaysato. yaa soo apply gareyn karaa programka su-aasha ah. Waxaa u furan dhammaan qaxootiyaasha dunida oo dhan ayaa u furan. Qofka da'diisa u dhaxayso 19 sano ilaa iyo 40 sano waa soo apply gareyn karaa. Nationality markaan ka hadlayno dhalashada qofka soo apply gareyn karo, okay, waddan kasta dunida ayay u furan tahay. Dhammaan nationalityyaasha mise muwaadiniinta dunida oo dhan waa soo apply gareyn karaan. Haddaba qofka soo apply gareynayo waa inuu ka baxsanaadaa Europe. Must be living in the first country of asylum. Waa in qaxootinimo loo qaabila waddankiisa aan ahayn inuu ku noolaado. Kuma jirto marka dadka degan Europe. Dadka degan ma soo apply gareyn karaan oo wax loo yaqaano European Unionka. Waddamadan European Unionka qofka ku nool ma soo apply gareyn karo soo qaxooti ah. Luqadda la iska rabo waxaa ka mid ah English iyo Faransiiska. Luqadda Faransa iyo luqadda Ingiriishka ayaa inta badan manaha la tixgeliyaa scholarshipkani. Waayo programku wuxuu ku bixi doonaa English and French labadaba. Inta la iska rabo waxaa ka mid ah qofku inuu wato kaarka qaxootiga ayaa ka mid ah. Haddaba marka aad ku guulaysato scholarshipkani masterka, waxaa laga damaanad qaadi doonaa mase laga caawin doonaa dhanka viga waxbarashada marka laga hadlayo, buugga iyo material kasta aad wax ku baranayso, computer wax walba, in lagu siin doono bishii lacag, okay, oo aad ku dabooli doonto baahidaada dhanka nolosha iyo dhanka cuntada ah, in guri lagu siin doono, in transportationka sidoo kale lagaa bixin doono, caafimaadkan dhanka caafimaadka in lagaa bixin doono haddii qofka xaalad caafimaad la soo diristo. Safarka qarashaadka ku baxaya iyaduna to iyo from labadaba waa lagaa bixin doonaa lacagta aad ku aadayso Faransiiska. Fiisaha lacagta ku bixi doonta ayaa lagaa bixin doonaa sidoo kale. Okay, qarashka lacagta ayaa lagaa bixin doonaa. Waxaa lagaa bixin doonaa fiisa lacagta ku bixi doonto. Okay, exam hadduu jiro pre-admissionka hadduu jiro iyadana sidoo kale lagaa bixin doono. Okay, soo degitaanka ayaa lagaa caawin doonaa. Psychological supportan waa lagaa caawin doonaa. Dhankaas wixii ku baxay oo dhan lacagtaas waa lagaa bixin doonaa mustaqbalka. Programkani deadline-kiisa waa 23 bisha February aan ku jirno 2025. Application process marka laga hadlayo qaabka loo apply gareeyo, okay, fieldiyaasha oo dhan halkaas ayaad ka heli kartaa, waad jeegarayn kartaa. Okay, sidoo kale waxaan jeegaraynaynaa insha Allah delivery online programka formka halkaas ayaad ka heli kartaa. Formka waa idin tusay insha Allah haddii aan yiri dib aan ugu soo laaban doonaa formka. Master programka halkan sidoo kale ayaad ka heli kartaa. Okay, dhammaan wixii maada ah mase fildiyaal aad doonaysid halkaas aad ka heli kartaa insha Allah delivery. Notificationka June ayaad heli doontaa emailkaaga ayaa lagugu soo diri doonaa. Emailka iyo systemka loo apply gareeyo hadday idin tusi doonaan insha Allah. Warqadan oo formka ayaad ku buuxin doontaa insha Allah. Dib aan ugu soo laabanayna insha Allah delivery. Sidoo kale fiisa ayaad heli doontaa kaas oo ku saamixi doona in aad abaar joogto waddanka insha Allah delivery. Sidoo kale waxbarashada inta sii wada ayaad shaqaysan kartaa, waa lagu ogol yahay inaad shaqaysato programkani faa'iidada uu leeyahay Faransa intaad joogto. Kadib markaad qalan jabiso maxaa dhacaya? Waxaa lagu ogol yahay work permit waxa la dhaho inaad waddanka ku shaqaysan kartid, aad joogi kartid, mise waxa loo yaqaano temporary residence in France, inaad mana deganaasho aad ka hesho waddanka Faransiiska.
marka insha allah waxaan ku laabanaynaa formka halkaas ay ku eg tahay programka informationka inta ugu muhiimsanada waa intaas weeye ee scholarshipka marka waxaan jeegaray doonaa insha allah daleri online application formkan ku dhufo markaa ku dhufatid warqadda aad heli doonto waa sidan marka warqadan aa kusoo bixi doonto insha allah daleri kadib hoos u teg marka warqadan englishka waa francis wey laakiin englishka dhago ani maanta marka maadaama aan furay formka maanta aan furay programka wuxuu tusayaa inuu yahay bisha 12keeda 2025 waa waqtiga aad furto marka taariikhda aad kusoo qori doonto insha allah marka hoos u deg okay qaxooti ma tahay mise qaxooti ma tihid yes baad dhihi halkani waa no okay kadib okay halkaas waxaad ku qoraysaa numberka qaxootiga ID-ga aad haysato lambarka ku qoran baa halkaad ku qoray hoos baad u degi maanaha wuxuu ku leeyahay sheeg goorta aad heshay lambarka qaxootiga marka waa year month date baad qoray marka waa sii soconi kaarki baad halkaa kusoo download garanaysaa marka kaarka baad kusoo download garanayso halkan ku dhufani toos wuxuu kuu geynayaa marka computerka uu kuu geynayaa marka waa taqaana marka waa soo diyaariso waxaad kasoo qaadaa sawir then desktop kasoo dhigo then halkaa okay abriil ku dheh mise open ku dheh ka soco magacaaga halkaas ku qori insha allah daleri okay magacaaga iyo aabahaaga iyo awowgaaga oo waqtiga aad dhalatay bisha sanadka iyo maalinta ayaad qoraysaa rag iyo dumar okay sidoo kale inaad tahay qof xaas leh inaad tahay qof single ah halkaad ku qori caruur ma tahay mise qof weyn okay caruur ma leedahay okay no amba yes wey caruur ma tahay mahaya caruur ma leedahay wey ilma ma leedahay marka haddaad guursatay haddaad dhahdo okay no amba yes baa lagaa rabaa nationality waddanka aad u dhalatay ayaa lagaa rabaa halkaas wuu ku furaya applicationka then hoos waa u soconi soomaaliyaad ka doorani okay waa sii soconi waddanka aad deganta hadda waddankii halkaa ka dooran haddan mar labaad waa sii soconi jinsiyadaada sida haddaad aad tahay certificate oo dhalashada haddaad haysato mase haddii aad haysato passport halkaada gelin okay emailkaaga sidoo kale marka waa wax iska fudud weeye marka applicationkan ka hadlayno okay lambarkaad ku isticmaalayso whatsappka okay whatsapp numberka addresskaaga okay luqadda haddii aad taqaano english iyo faransiiska okay xeerka aad ka joogto levelkaaga haddii aad haysato faransiis amba english certificate waxaas okay la xiriiro halkaas sidoo kale halkaa kusoo download garayn studieska diblomaha sanadka aad heshay okay waxaasaad qoray marka waa easiest way okay aad ujeeda formka waa kaas umaad buuxin formka marka saa u buuxiso formka ilaa dhamaadka wixii lagaa dalbadaad ku buuxin wixii yes iyo no ana yes iyo no then maxaad marka intaa marka dhamaystirto summit baad dhihi marka waa easiest way qaabka loo apply gareeyo aad bay u fududahay marka scholarshipkan waxaa idin rajaynaya insha allah guul baa idin rajaynaya wax walba scholarship insha allah dalo idinla soo wadaagi doona youtube-kana subscribe-ka iyo share walaalahaaga soomaaliyeed u share garee أنا waxaan ku dadaali doonaa insha Allah inaan idinla soo wadaago dhammaan wixii program scholarship ah insha Allah hadii aad baan idin salaamaya khayr baan idin rajaynayaa youtube-ka hoostiisa qaybta message-ka ayaan soo dhigi doonaa insha Allah linkiga halkaas ayaad ka daalaan doontaan formkani iyo warbixinadii aan soo sheegnay dhammaantood insha Allah aad baan u mahadsantahay waan idin salaamaya good luck ayaan idin leeyahay